السلام عليكم soo dhawaada meel kastoo joogtiin waa inii salaamay salaanta kadib waxaa rabaa arinta qadar iyo fahiima inaan hal iyo laba ka iraado hadii ilaahay idmo waxaa jirto qadar iyo fahiima janaaladooda labadoodaba inaan ku xiranahay waxay soo dhigaana arko ninka qadar la yiraahdo ayaa wuxuu soo post gareeyay video asigoo leh fahiima ayaan is aragnay si fiican ay soo dhaweysay kadib video aan isla duubnay labadeena waxaa rabnay anagoo wada faraxsan inaan soo galino YouTube-keena waxaa soo wacday fahiima oo iga codsatay videogaas inaan soo galinin YouTube-ka sidiisaba anigana fahiima maadaama ay madaxa ii saaran tahay ma rabo videogaas inaan soo dhigo waan iska daayay ayuu yiri taas ayuu inaga raali geliyay kadib waxaa dhacday fahiima ayaa soo hadashay hadana video ay soo duubtay ayadoo moral dilaacsan oo zaid u qashuucsan oo leh qadar sidan ugu lisay iigu sahambayn oo si xun buu ii galay ayadoo ka sheekeynayso dhibtu u geystay kadib waxaa dhacday qadar intuu soo orday videogii uu lahaa ma soo gelinayo ayuu soo geliyay videogii wuxuu noqday labadooda oo yacni isku faraxsan oo aad u qoslayo qosolkoodana dad badan soo jiiday oo dhahayaan branki bay ahayd waxa idinku sameynayay aniga waa rumaysan waaye filan waa ay igu noqotay ayadoo taasi jirto waxaa dhacday fahiima inay video soo duubtay ayadoo leh waxa arkaysaan yani waa wax adinka la idinku marin habaabinayo wax ka jirana malahan waa been battery way beenisay marka anaga ma garanayno hadda cid aan rumaysano qadarna ma rumaysan karno oo anaga quluubta dadka ma daawacano fahiimana ma rumaysan karno qofka qaldan ilaahay baa og labadoodaba qadar ayaan ku horeen doonaa gabadha walaashaada fahiima waxaa ka balan qaaday inaadan soo dhigi doonin videogaas sidoo kaleeto dadka ku daawanayana waxaad u sheegtay inaadan soo dhiginin haddana waa soo dhigtay taasi ma garanayo waxaad ula jeedid iyo waxa ula jeedadaada tahay midda kale fahiima adigana ilaahay caqli buu ku dhiibay qof maasha Allah oo weyn baa tahay يعني qofka sidiisa waxa fiican aqligiisa inuu adeegsado ma ahan waxaan sameey hadii lagu dhaho inaad ogolaatid waxa hadii qaldan yihiin ee been yihiin adigana aad u jeedid waxa waay inaad dhahdid war aniga qof weyn baa ahay oo caqli leh been ma sheegi karo waayo beentas been yar ma ahan been loo dul qaadan karana ma ahan runaantii horaa waxa loo yiri hadaan la kala roonan roob ma doo sideedaba waxa fiican labada qof inay kala roonaadaan ilaahay arlada wuxuu u weyneeyay in يعني labadii qof oo isfahmi weysay ay kala tagaan wada fiican adigoo u jeeda inaad ku kala tagi kartaan please ha raadinin wada xun waxa idin ka rajeenayaa insha Allah in yani qofka kale uu jawaabayo inuu iska dhaafo yani arintiina dhan social media waxa soo dhan aad ka dhaxbaxdaan ilaahay alladan wuxuu u weyneeyay horta labadii qof oo isfahmi weysay inay ku kala tagaan labadiina hadaad isfahmi weyseen si nadiif oo cad ku kala taga ma ahan ma taqaanaa dagaal iyo muran iyo waxaas dhan inaad ku kala tagtaan adinku u jeedo samaha iyo wanaaga ilaahay wuxuu yiri markaad isku naxariisataan ayaa idin naxariisan doonaa marka isku naxariista si uu ilaahay idinkugu naxariisto waxa jiro wax la yiraahdo tanaasul labada qof sideedaba waxa fiican inay isku tanaasuli karaan qofkan hadduu nolosha kugu xumeeyay kaligiis adduunka ma saarno dad badan oo ka wanaagsan ayaa joogan qofkan hadduu ku xumeeyay waxa sameyn kartid kaliya waxa waay ilowsho inaad iska ilowdid waxyaabaha aad ku xasuusan kartid dhan inaad iska tirtid oo ilaahay abuurtay aad ku deesid adigana ilaahay isku xirtid oo tiraadid ilaahay oo qofkan dibku ii geystay waa ogtahay ilaahay oo qalbigayga ka nadiifay ma ahan inaad inta social media soo istaagtid qofka aad ku fadeexaysatid taas qalad waaye waxaan kaga digayaa qof walba oo social media ku jira insha Allah qofkan hadduu ka tagay oo ku cileeyay ma ahan in uu qofkaas ku xumeeyay qofkaas jaanis ayuu ku siiyay oo asiga qof kaga fiican aad ku raadsan kartid marka waxaan ku leeyahay jaanis ayaa haysataa jaaniska ka faa'iideyso haddaad adiga qofkan agtiisa raqiis ka tahay waxaa jiro yani qof agtiisa diamond ah ka tahay raadi qofkaas oo agtiisa diamondka ah ka tahay shakhsi walba social media ku jiro waxaa haboon mar walba noloshiisa qaaska ah inuu private ka dhigto ma ahan inuu dadka hortooda la imaado waxyaabaha loogu talagalay in la qariyo waxaa jiro qof intuu dhaawac ku geysto misana dhaawacaaga dhayayo qofkaasi ha u maleynin gacalkaaga wuxuu doonayaa markasto inuu xanuunkaaga ku tusiyo inuu markasto oohintaada ku tusiyo ayuu doonayaa qofkaas isku day inaad ka fogaatid marnaba noloshaada iyo baaqi ku sii ahaanin dhamaantiin waxaa idin leeyahay xanuun walba caafimaad ayaa ka dambeeyo xanuunka fiirinin insha Allah
caafimaadka waa gaari doontaa haddii aad maanta xanuunka ku sugan tahay biri ayaa caafimaad ka heli doontaa meel kastoo joogtiin waa idin salaamayaa hadalkaygana haddii aad qalad u qaadateen waa idinka raaligelinayaa insha allah waqti walba oo idin tahay ha idin wanaagsanaado kaliya fikirkayga ayaan ka hadlay haddii dhib aad u aragtana waa kaa raaligelinayaa waxaa inoo balan ah never give up